جزاك الله خيرا. waxaan rabaa sheekh in su'aalaha dabcan aan dedejiyo. halkan arrin baa jirta dabcan marka dhaqaalaha laga hadlayo min mustawaha qof ka bilow ilaa qaran. waxaa la yidhahdaa man laa yamlik quutahu laa yamlik qaraara. نعم arrintaa cumar aad sheegaysa hadda weeyaan haddaanad awoodin inaad yacna noloshaada aad dabarto نعم cidda ku dabaraysa ayaa ku amraysa. ساسوي من يوفق يشرف الله نكون وحقصية كو إشراف هاي waka su-aasha marka meesha taalla caalamka maanta waxaa jira online bay wax ku socdaan. tusaale ma laga shaqaysan karaa ma laga adeegan karaa waa laga soo gudbaan maraynaya. dadka waxay isweydiinayaan mararka qaarkood marka islaam ahaan dadkeenuna aad bay isku weydiiyaan diintu maxay ka qabtaa ma xalaal ba ma xaraam ba. waxaad moodaa inta badanna in 20kii sane lasoo dhaafay ama 30kii sane lasoo dhaafay in khitaabku uu u badnaa iska ilaali cabsi badan inay jirtay xaaraan baad ku dhici kan baad orani kan baad sidan khaasatan marka qurbaha la joogo fataawooyinka qaarkoodna ay aad u cabsi gelinayeen dadka. marka xaaraan sidii loogu hayay dadkii waxaa dhacday in ay ka baqeen in ay tallaabo qaadaan. نعم waxaa marka isweydiin leh suuqan laga adeeganayo ma laga shaqaysan karaa. suuqa markaan leeyahay online-kan ka wadaa. نعم dadku online marketing ma samayn karaan online ma ku noqon karaan maaragtay shaqaale. tusaale waxaa jirta kambaniye waaweyn oo service bixiya ama product soo dhiiba oo iibiya sida نعم مثلا nutrition company yani waxaa ka mid a Herbalife waxaa ka mid a Olife waxaa ka mid a Forex waxaa ka mid a Amazon suuqyada caynkaay oo dhan dadku ma ka shaqaysan karaan oo ma kaga xoroobi karaan shaqadii weliba marka ay dad ama culimo ha noqdaan ama aqoon-yahano ha noqdaan ama dad waaweyn ha noqdaan. waxaa laga yaabaa dadka dhalinyarada inay jaamacada intay ka baxeen ay yidhaahdaan annagu kuriirkii baan hadda samaynaynaayo haddaaban meel u shaqo tagnay oo haddaaban saas oo kale. okay qofkii isagu lagu cunsuriyeeyey maalan diin oo maanta caalamka waxaa iska jira cunsuriyad daahsoon oo positive bay dhahaan positive discrimination. gabdhaha oo kale xijaabka waa cunsuriyad meesha jirto oo daahsoon. dadka da'da soo gaadhay maalan 40 50 soo dhaafay da' baa lagu cunsuriyeeya. shaqooyinkii oo kale markaa yani siday ku helaan way adag tahay. ma yeeli karaan dadkaasi inay suuqan wareegaan ay ka shaqaystaan. dhalinyarada laftigoodu cid u diidaysa ma leh ma ka xoroobi karaan ma ka shaqaysan karaan. tafadal sheekh. بارك الله فيك أخي إن لا شقيسته وبنانته هاي كسبك وحلو شردية كلي إنه حلال يهي أصل كجناع سجنة أما معاملات كباب كمعاملات كلها هاي وحليل الأصل في المعاملات الحل إلا ما حرم الشرع إلا يوح حرم الشرع هذا يحرم تماهنه قفك إنه بيع جناعسي أو قلو ولذلك أحل الله البيع وحرم الربا إلهي سبحانه وتعالى وحر الربا ربا وحرمه marka mushkiladda taal waxay tahay xaqiiqatan oo dadka ma dib u dhigaan dhihi karaa laba xaalo ayay noqotay laba qof aan takhasuskiisa ahayn cilmiga fiqiga ah inuu dadku ugu degdego xaaraanta asoo u maleeyo inuu baabka oo ka dheeraanayo xumaanta baabka xumaanta dheeraanteeda ama xaaraanta ka dheeraanteeda iyo taxriimka dariicada oo min al-adilla mukhtalifa ah iyo ina waxa xaaramaytis waa kala duwan yahay qofka inaad tiraahdo waxaan ani xukunkooda ma aqaan laakiin waan ka fogaanayaa aad tiraahid baabkaas iska xiraya oo faman ittaqa shubahaat faqad istabra lidiini wacirda gaar laakiin lilasaf dadka saas ma dhahaane dadka waxay god kale ku dhacaan ayagoo xalaasha ka ordaya xaaraanta ku dhacaan walidaalika ilaahi subxana watacaala waa iskugu mid nin wax xalaal ah xaaraantimeeyey bal waa ka daran yahay sidii axaadiis ku soo aroortay nin wax xaraam xalaal ka dhigay maxaa yeelay ninkan in lagu cudur daara laga yaaba ninkan waxaa laga yaabaa inuu ummadii oo qabto walidaalika dar'u lmafsada markasta markaan laga hadlayo ilahay qur-aanka markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay walaa taquluu lima tasifa alsinatukum alkadib hada xalaalun wahada xaraam labadu waa isku mid waxna xalaalin xaraam marka dadka dhowrsanaantii waxay ka dhigeen xaaraan ay xaaraantimeeyeen mushkilad taas wey taas maxaa keenaysa cadam alfiqhi ninka markuu xadiis kusoo takhasusay ama uu qur-aan kusoo takhasusay oo fiqiga aqaanin oo majaamicda ula xariirin oo masaa'ilka wax laga fiirinayo shuruudo badan laga fiiriyaa oo aan ka fiirinin waxa laga yaabaa inuu afku soo baado oo dadka dhan ka cabsi geliyo
iyo dad kale qarad leh oo hadaf kale leh waa laga yaabaa oo laftigooda ganacsiga dhinac kaga jira oo raba iyagana inay ganacsigaas xiraan kooda u socdo ولذلك المبتلى وعلينا من ابتلي بشيء فلا يستفتى نين wax lagu imtixaano nin sigaar cab adiga sigaar xalaal waa la miira marka nin ganacsi ku jiro laftigiisa ma daa weydiisid aad tiraahid nin sigaar caba ama nin qaad cuna daa weydiisid aad tiraahid qaadka xaraan miya wuxuu ku leeyahay xaraan ma aanu ku dhahay maxay usoo lagu ibtilay sigaarka asal lagu ibtilay marka nin ganacsi u furan hadaa la tagtid ama sheekh hadaa la tagtid aad tiraahid sheekhow arintaas ka waran wixii asaga ahaa waa asal lagu imtixaan arintaas oo imtixaanka wala wad maraya nas'ala salaamatu wal caafiya saas daraadeed waxaan moodaa marka in taxriimku lagu degdegayo asalkii oo usuushii ahayd oo xilkeedna xalaal masalada marka waxaa laga fiiriyaa kow qawaacida lagu dhisaa sideedaba oo wax ku dhisan jira cuquudda ku dhisan ayaa jira oo waxaa la leeyahay asalkeed waxaa kow ah inama alacmaalu binniyaati walamuru bimaqaasidiha qofka in laga fiiriyo xaggaas labadaba al-iltisaam bilxalaal inuu waxaan xalaal yihiin maxaa yeelay shaygana asalkiisa xaaraan ma aha ashyaadu dhan ba xalaal weeye laakiin alaslu fi alashyaa alibaaxa allah waa bannaan tahay laakiin kasbiga dariiqadii kugu soo gelayso ayaa ama xaaraan ka dhigi kara ama xalaal ka dhigi kara marka waddada usoo martay kaa soo xaday shilin soo xaday xaaraan uu naqanaa shilinka xaaraan ma aha laakiin xadidaas oo xataa xaaraan ka dhigtay hadduu wanaag kugu soo galna xalaal uu ku yahay shaqa dhiidkaad ku yimaad hadda la isku qaad xaaraan uu ku yahay wahaakada waxaa laga fiiriyaa sidoo kale qaacidada caamkeeda aan sheegay alaslu fi lmucaamalaati inay xalaal tahay saddex afar waxaa laga fiiriyaa in la yidhaaho almuslimuuna calaa shuruutihim ninka inuu yidhaaho yani ilaa shardan axalla xalaalan uxaram xaaraama badan ballanka la galo dadka ganacsiga galaayo shirkadaha galaayo inuu sheegan walidaalika inta badan dadka ganacsatada waxay dadka ku waasheen oo ama dadka xaaraanta u ra'yideen waxaa kamid ah dadka waxay u sheegaan keliya faa'iidada u sheegaan nina wuxuu ku leeyahay shirkada hayaa kaala kusoo biir intaasaa helaysaa lacag waa 500 lagu soo diraa bishii kuna helaysaa marka waa loo sheegay dadka shirkada laqaa shirkadana shuruud ay leedahay walidaalika inta badan dad badan faqas ku dhacay oo Yurub jooga dadii lacag u dhiibteen lacagtii wax ka waayeen hadhow waxa leeyahay marka nin kala imaan wuxuu leeyahay xaaraan ay ahayd wuxuu rabaa inuu ganacsiga dhin ka fogeeyo wuxuu leeyahay ewla meel xaaraan wax ku darsato dhaha waa mushkilo waxay inay xalaal yihiin laga yaaba marka waxa weeye qofka markuu shirkad galaayo wax daray waxa la rabaa in loo sheego waxa faa'iideysa waxa qasaara in tasarrufaadka in iskaga mid yihiin milkiga waxaas in laga fiiriyo qaacidada kala fiirina waxa la yiraahdaa alfaada marka la bixiyo oo ah gaal iyo alfaad gaal waa sharciga islaamka waxa la al-ibratu bil maani wal maqasid qaacida jirto ah walaysa bil alfaad wal maani magacyada la bixina hadda shirkadaha sheegta magacyadood iyo shardi ma sheegi inay xalaal yahay inay xaaraan yahay dadka ahli cilmiga la weydiinaa sidoo kale uxuudi ballan ila al-ilzam oo qofka ballanku galaayo waxaas ku soo galaayo waxaas la faa'iida waxaas laga shaqeynaa ila iltizaam sidoo kale in la raaco waxa kamid ah arinta beeca curfiga hadda aniga hadda waxa ka hadashay Yurub la jooga casri elektroniya la jooga elektroonka waxa weeye shuruud beeca fiqiga aan ku soo qaadan waxay ahayd al-ijaba wal qabul ayaa iyo al-aqidaan ayaa shart u ahayd labada qof waxay lahayd hadda ijaabka qabul nin waxa qaadana malaha waxa tagaysaa beeca dhan bal lagu sheegayo waxa tagaysaa midalan makiinadahan wax laga cuno amal wax laga gato lacaga ku ridaysaa batoona taabanaysa waxa ku soo dhacay jibsiga ku soo dhacayo ama waxa ku soo dhacay cabitaan kooki waxa taabsatay adiga marka aala wax ka gadayso المسألة مركا شرطي كل وحدة القبضة قبضة أنا لا والله كلا صار حقيقي يحكمي يا جرا حدو قفك أو كان كيس هروب سود عيني وتن حوالد وكلا أنت قدرتي ما بيعملوا العكس قادنا مركا شروطها أصلا حباهين إلا وقادوا إن ضدك الحرارة حرارة الوضوء حيني بس مرة قاركود المشقة تجلب تيسير يرب ضدك كنول وقميص وكنول وحماد كنول وحوا إنه تيسيري وأولي له قناعتك لوجود يري جليو أو مركزتا أو لفيريو وحي قال ولذلك وحدي جرين اليسير الحرام معفو عنده عند ضروره مركي ضروره ما حتى انت يا حارانته ولا عفينا ايدو لكن مشكلته تاع waxay tahay dadki inta badan mid kale waxa doonayaan in waxa ay naqdaan caam ay naqdaan in qardad qaas oo ixtikaar naqanin hada ganacsiga waa ixtikaar nina shirkad soo ogaanay kaligiis iyo qaraabadiisi iyo wuxuu kulli tan aniga inuu xiran tahay diintan ma qabto waa dadka in loo sheegaa ilaahay subhanahu wa ta'ala rizqooda dadka in hor istaaga maaha in loo sheego waa waxaas marka asbaab badan jira marka way banaan tahay in arrimahan elektrooniga laga shaqeeyo waxa aad gadaysid iyo waxa gadanaysid ayaa asalkooda inay waxay yihiin awaatid iyo inay meesha ribo ku jirin la ogaato dadka cilmiga u leh ribadana in la ogaado naam la weydiiyaa ron خير الله كسي جزاك الله خيرا